markuu nabigeenu xanuunsado xanuunkii la dhacay ayaa nabiga lagu yiri salaadii baa taagan nabi allah markaasuu nabigu Abu Bakar u sheegay ummadda salaadaha ka bixiye Aisha radiyallahu anha oo agtaagneed nabiga ayaa ku tiri inna Abu Bakr rajulun raqiiqun Abu Bakar waa nin qalbi jilicsan weeyaan ida qara'a al-Qur'ana ghalabahu al-bukaa haduu quraanka akhriyana oo hintiisa ayaa quraanka ka qalib noqota وهذا عمر الفاروق رضي الله عنه صلاة الليل كي هبينك مرقو مسجد النبي سو غلي wuxuu arkay inaan yar oo suurada tuur ku tukanaya qiyaam leelkii quraankiisii buu dhageystay markuu gaaray yarkii yara inna cadaaba rabbika la waaqi' cadaabka rabbiga waa kii dhici doona weeyaan aayada Umar markii uu gaarayna dhulku ku dhacay Umar ibn Khattab intuu la qaaday ayaa gurigiisii la geeyay bil ku dhabu xanuunsana xanuunkiisu meeshuu kaga yimidna lama ogeyn Miqdaad radiyallahu anhu saxaabigi loo oran jiray Miqdaad ibn al-Aswad habeenkii markuu